الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي سقالات إيو كتاب كيني الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله ولي وحن كجرنا قيبتي معاصدة معصيدو وحي جلسا قفك تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولكو ضد بضنبو لعنة ذي waxyaabo badan oo la qabtana lacnad buu ku tuuray marka ruuxu haddii uu macsiyadiisu ay badato ama uu macaasi sameeyo wuxuu gelayaa dadkaa la lacnaday buu ka mid noqonayaa ayib haddaba aan aragno calaa sabiili mithaal waxyaabaha qaarkood rasuulku wuxuu lacnaday sala allahu calayhi waaalih wasalam aakila riba yacni ribada qofka cuna iyo kan cunsiiya iyo kuwa markhaatiga ah iyo kuwa kaatibka u kala qoraya afartaba wuu lacnaday ribadaasi marka xarbi ilaahay baa ku sugan iyo dagaal baa ku socda laba shay oo rabbi uu midna aayadda qur-aanka fi suurati albaqara lagu sheegay midna xadiisulqudsi lagu sheegay in xarbi iyo dagaal lagu sameynayo baa wuxuu ka mid yahay ee ribadu ka mid tahay ta kalena waa qof weli ilaahay ruuxii la dagaalama ayib waxaa lacnad uu ku tuuray oo kale rasuulku sal ly slam almuxallila walmuxallila lah muxallil iyo muxallila lah qofka wax xalaaleynaya kan loo xalaaleyn waa ataysulmustacaar masalada la yidhaahdo oo waxaa ahayd iyaduna waa ninkii dalaaquhu intay ka dhammaadeen saddexda dalqadoodba ay ka dhammaadeen haddana intuu nin lasoo heshiiyo yidhaahda gabadhan ii guurso oo meherso oo habeen is arka oo kadibna iisoo fur oo sidaa hay ugu soo noqoto waxaa lagu magacaabay inuu yahay ataysulmustacaar orgiga la ergisto oo kale marka lacnadna waa lagu tuuray ayib waxaa kaloo la lacnaday rasuulku saariqa qofka waxada isagana lacnad baa lagu tuuray waxaa la lacnaday shaaribulkhamri kan khamrada cabana lacnad baa lagu tuuray waxaa la lacnaday qofka dhulka soohdintiisa bedela meelaha beeraha waad garanaysaan dadku isku leexin jireen iyo maaragtay soohdinta qofka kale lagu leexinayo guryaha soohdinta laisku leexinayo dhulka yacni la kala qaadanayo taas waa hawl adag iyadana lacnad baa dusha looga man gayara manaara al ard dhulka qofka bedela calaamadihiisa waxaa la lacnaday qofka labadiisa waalid lacnada labada waalidna waxaad u lacnaday inaad sabab ugu noqoto qof baad lacnadaysaa isaguna lacnad buu waxaa nacala waxaa ku yaalba markaas adigana lagu adna nacala waxa marka qofkii sabab ugu noqdo isagana lacnad baa lagu tuuray waxaa la lacnaday mukhanith waa qofka iska dhiga min arijaali yacni ragga iska dhiga oo kale dumarka iyo dumarka iyaguna ragga iska dhigan lacnad baa dusha looga tuuray ayib kuwa dumarka sida ragga u socda iska doondoona inay rag iska dhigaan iyo tallaabadooda iyo dharkooda iyo fulaanka iyagana lacnad baa dusha looga tuuray waxaa la lacnaday qofka ilaahay cid aan ahayn wax u gowraca lacnad baa iyagana dusha looga tuuray waxaa la lacnaday qofka camalu qowmi luut nimankii reer luut oo kale camalkoodii rag wax ka dayaaya iyo dumar wax ka dayaaya taana lacnad baa dusha looga tuuray waxaa la lacnaday qofka aabihii maaragtay lacnada waa isagana lacnad baa dusha midka hooyadii caaya iyo ka aabihii caaya lacnad baa dusha looga tuuray waxaa la lacnaday qofka adduunyada xoolaha wax ka daya yani wax walba diinteena way ka hadashay dad baa xoolo wax ka daya oo geeli wax ka dayaaya oo rag baa geeli wax ka dayaaya oo lo-da wax ka dayaaya oo adhigi wax ka dayaya oo bahiimadii wax ka dayaya oo dameerihii bay qaar wax ka dayaya iyo qashinkaas marka taas iyadana lacnad baa dusha looga tuuray waxaa la lacnaday qofka imraa man afsada imra'atan calaa zawjiha haweeney ninkeedii ruuxa ka fasahaadiya taasina way badan tahay oo waa niman u sheekeeya gabdho la qabo oo raggii qabay ay joogaan bay u sheekeynayaan kadib si ilaa marka u dambeysa reerkii laga fasahaadiyo oo fasahaadaas waxay noqon in gabadha ninkii nacdo oo laga furo oo yidhahdo anaa ku guursano sidaasoo kale ama inuuba xumaan baro oo maaragtay sidaa ay gabadha ku fasahaado iyagana lacnad baa dusha looga tuuray waxaa la lacnaday man ataa imra'atan fii duburiha ama xaaskiisa dadka xaaskiisa iyo
dumar uu qabay isaguna xagga dambe wax ka raadiya, iyaguna waa qeyb maftuun oo lagu fidnoobay oo maaragtay ay ku fidnayseen dadka gaaladan iyo markay arkeen iyo dadkan dhaqan xumada iyo way u badan weliba masaladaasi hadda wadamada reer galbeedka aan joogni iyo kusii badan tahay oo dhalinyarta yaryar ee wadamadan iyo dhaqankooda arkay bay kusii badan tahay. marka iyaduna waxaa weeye masale lacnad dusha looga tuuray iyo ashyaa kale oo badan. haddaba intaas oo dhan waa iyo in kaloo kasii badan baa lacnad kulligood lagu tuuray. qofka arintaas samaynaya waxaa la yidhaha hadduusan raalli ka ahayn inuu galo dadka la lacnadaya ilaahay subxaana watacaala arintaasna uusan raalli ku ahayn, waxay ahayd inuu ka joogo, uu diido, uu ka istaaga ayay ahayd. marka ciyaadan billah, ilaahay subxaana watacaala haynaga nabadgeliyo, allana haynaga badbaadiyo. wajazaakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu.